dowladda Qatar ayaa waxay dowladda Soomaaliya guddoonsiisay gawaari basas ah kuwaasi oo gaaraya 30 baabuur iyo 2 wiish waxaana dowladda Soomaaliya u guddoomay wasiir ku-xigeenka dekedaha iyo mas'uuliyiin ka socda maamulka gobolka Banaadir ugu horeeyna waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda maamulka Xuseen Nuur Maxamed maanta waxaan joognaa dekedda magaalada Muqdisho dhexdeeda annagoo la wareegayna gaadiid ay lagu wareejinayaan dowladda walaalaheena ee Qatar gaadiidkaas oo ka kooban 30 baabuur oo basas ah ay ugu talagaleen ama ugu tabaruceen shacabka Soomaaliyeed waxaan la wareegaynaa annagoo ka socona maamulka gobolka Banaadir gaadiidkaas 30 bas ah oo aad hortiina ka muuqda runtii waxaan uga mahad celinaynaa shacabka iyo dowladda Qatar inay shacabka Soomaaliyeed oo walaalahooda muslimka ah gaadiidka ay ugu talagaleen shacabka Soomaaliyeed ee muslimka ah ee ku nool magaalada Muqdisho runtii waxay soo dhaweynayaan anagoo ku hadlaya gobolka Banaadir afkiisa iyo shacabka Soomaaliyeed qaybooda kala gedisan baabuurtaas dowladda Qatar ee walaalaheena ay ugu talagashay oo dowladda Qatar ay ugu talagashay shacabkooda ama dalkooda labaad ee Soomaaliya ay ugu talagashay waxaan rabnaa inaan gaadiidka maanta meesha kula wareegno aan ka mahad celino deeqdaas iyo garab istaagaas dowladda Qatar ay u sameysay shacabka Soomaaliyeed waan ka mahad celinaa mar labaad iyo mar saddexaad sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka gaadiidka dowladda Soomaaliya wuxuu dowladda Qatar ugu mahad celiyay deeqdani ay soo gaarsiisay alxamdulillah qanaa lillahi wa salatu wa salaam ala rasuulillah awal safiirka iyo dhammaan marti sharafta madaxda maamulka dekedda bahda saxaafadda iyo maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiinta ka socda assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan kadib sharaf ay noo tahay inaan maanta kala wareegno walaalaheena dowladda Qatar oo safiirkeena oo nala jooga muddo dheer nala joogay dalka Soomaaliya gaadiidkan 30 ah ee gobolka Banaadir shacbiga ku nool loogu talagalay iyo labada wiish waxay ay takareen oo halkan yaala ee kaga muuqda gadaashayda loogu talagalay dekedda magaalada Muqdisho in ay yaani lagu xoojiyo hawlihii adeegii ay u haysay shacbiga Soomaaliyeed waxaan kala wareegnay qalabkaas qiimaha leh oo dowladda walaalaheena Qatar ay noogu deeqday si maxay ahayd waxaan loo wareegnay niyad sami ah si qalbi furan ayaan loo wareegnay waana ka mahad celinaynaa maxay ahayd mar walba gargaarka iyo taageerada oo يعني تيادر مر والبا إن لا قرب تاجن تاي دولة ولا النهاية قدر منا أها مركي وجوه رئيسي أي نوجود قان قلب منا أها تاكلين واحد لا قرب تاجناين أنتي أسوجرني أو بمركي دواتها أن كجرني هديت هاي عافمات هديت هاي تاجرك هلا بحيث مد مادي مد يعني نوع كستاب وين لا قرب تاجناين مركب حلنا دولة قدر أو سفير كان أو مدير أو نلجوجي وحلنا ومحسنتهين يولال أخونا يوسف والدين ما حد إلينا مركب براحة يلا تاجينها وقت بدنا وتاجنيدين قلب كاسر إن شاء الله وهينوسو كردين دونا أنا قبل كبنادرنا وهيكوسو كردين دونا أذيك دكتنا وهيكوسو كردين دونا أذيك كلا أو شعب الصومالي لما أنتوا بحكوا الله مركب إن شاء الله وحنا رجينا أنا جنا إن سوى نفسنا أن وقلنا قلنا أما أن انتفاع صنع قلب كاس عصري أنا لقوا وريجي لما أنتين مركب محسنتهين وزارة كذا يعني قو دولة فدرال كأفكار وحضلاء يو ما أمر قبل كبنادر وحلك اللي جوا جبا وحلينا دولة قدر ولا لها النهاية ومحسنتهين السلام عليكم. دولة قدر عيا وحي دولة الصومالية كتاير تقيب بدن أو كم ده رمها بالشدة يولي بهر مركز ذلك قبيس كالدوان مريم حسين جبريل SBS TV مقالة مقدشو.